Wiilkani waxa uu aflagaadeeyay Nebi Muxammad sallallahu alayhi wasallam waa eeday waxaana ku dhacday caro Alle in ka badan 180,000 oo qof ayaa kala laabtay subscribe-ka walwal iyo walbahaar ayaana u bilowday. Waa nin Ilaahay ka furtay oo waalidkii ay inkaareen oo gabar darteed hooyadii iyo aabihii ula dagaalay. Nin waalidkii u gafay wax kale ma soo wado inuu khayr soo wadin horaan baan u ogaa haddana nabigii uu afaarihiisa galay. ilaa iyo goorme ayaan indhaha ka daawan doonaa comment ka bixin doonaa una ducayn doonaa qof Ilaahay abuurtay ku kufriyay ka fogaaday ambiyadiisii gaar ahaan nabiyullaahi maxamed caayay oo Soomaali ah lama aqbali karo. muslimiinta kale ee duniduna dhaqanka in kala mid ma aha. haddii aad jeceshahay diinta islaamka difaacayso suubanaheena maxamed muuqaalkan sii share gare like na saar kuna xiro boga maxamed tarsan mahadsanid. wiilkan oo lagu magacaabo Axmed Kaafi AK kana mid ah dhalinyarada isticmaala aaladda TikTok ayaa u gafay aflagaadeeyna suubanaheena Muhammad sallallahu alayhi wasallam shakhsigii ugu karaamada badnaa ee Ilaahay uumay. runtii dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta Turkiga ayaa aad uga carooday waxaana lagu raad joogaa oo laga raadinayaa meelo badan oo kamid ah wadanka Turkiga iyadoo ciidamada dawladda la howlgeliyay si ninkaasi loo soo qabto kadib markii ay warbixin gaarsiiyeen isla markaana Soomaalidu ay amreen in la soo xiro. diinta islaamka ayaa qabta in la dilo ama si toos ah loo qisaaso qof walba oo ku xadgudba sharafka iyo karaamada nabiyullaahi maxamed. wiilkana kuwaas ayuu kamid yahay. waa nin Ilaahay ka furtay oo waalidkii ay inkaareen oo gabar darteed hooyadii iyo aabihii ula dagaalay si uu galo qurbaha waxa ay isqabaan sida uu sheegay ama ay saaxiibaba yihiin gabar Soomaali ah oo haysata baasaboorka Mareykanka isla markaana USA ka timi taasoo kafaala qaaday noloshiisa oo dhan darteed ayuuna waalidkii ugu gafay. nin waalidkii u gafay wax kale ma soo wado inuu khayr soo wadin horaan baan u ogaa haddana nabigii uu afaarihiisa galay. wiilkan waxa uu sheegay inuu kamid yahay maasuuniyadda ama waxa loogu yeero Illuminati-ga oo ah urur sireed caalami ah oo aan la ogeyn halka xaruntooda dhabta ay tahay laakiin magaalada Berlin ee wadanka Jarmalka laga asaasay 1800 waa qiyaastii 200 oo qarni ama 200 sano ka hor. dad badan oo dunida ah ayaana ku biiray waxaana ugu badan dadka fanaaniinta ciyaartooyda iyo dad siyaasiyiin sidoo kale ganacsato ayaa ku jirta. kooxdan waa koox ka soo horjeeda diimaha samaawiga ah si gaar ah waxa loo dhisay in lagu khashkhashaado ama lagu burburiyo diinta nabiyullaahi maxamed oo wakiilka ka yahay oo Alle uu noogu soo dhiibay islaamka. laakiin muslimiintu tirada dadka ay ku biiray uma badna laakiin wiilkaas waxa uu sheegay maasuuniyadda inuu kamid yahay oo ka shaqeeyo isagoo horay ay waalidkii uga caal waayeen oo faraha kaga gubteen ayuu haddana shuunihii Ilaahay iyo arrimihii ambiyada iyo nabiyullaahi maxamed faragashtay isla markaana aflagaadeeyay. wuxuu sheegay in isagoo og in Ilaahay uumay adduunkan uu leeyahay isagoo uu kala wado uu ridoobay ama uu ku biiray diinta shayaadiinta ee maasuuniyadda ama Illuminati-ga loo yaqaan si uu uga helo xoogaa yar oo nacfi ah ama sandareero isla markaana uu noloshiisa horumar uga sameeyo. sidoo kale dadka muslimiinta ah ayuu u hanjabay oo u sheegay awoodda maasuuniyadda inuu mu'aamarad ama shirqool ku sameyn doono. taasina waxay muujinaysaa aragtiyihii weligeed laga qabay maasuuniyadda ee la sheegi jiray dadka kamida iyo kuwa ka soo mid noqdayba in mu'aamarad ama shirqool lagu dilo inuu wiilkani qayb ka yahay. muuqaalkan waa ka duwan yahay kuwii aan hore idinla wadaagi jiray. waxa soo kiciyay oo igu soo kalifay in halkan soo fariisto anigoon warbixin sameynayn waxa weeye waxa ay dhaqantay qof asal ahaan muslim ahaa haddana ridoobay oo diinta ka baxay inuu nabigii aflagaadeeyo haddana baraha bulshada aan ku arko dad difaacaya oo dhahaya idinku maxkamad ma tihiin garsoor ma tihiin awood uma leeyihiin inaad xukuntaan culimo ma tihiin Ilaahay ba abuurtay bari asal la xisaabtamaya iska daaya wax la aqbali kara ma waxa qofku ku yiraahdana waa qof jaahila waana been. islaamnimada meel ay kaga taala ma jirto. qof islaama oo diin caayay ama qof gaal oo diin caayay hala daawado war hala dilo baa leeyahay. dad iska dhiga darxumadan iyo waxaan wax la aqbali kara ma